nin cadaan iyo gabadh muslimada ay is caashaqeen gabadhuna gabadh fiican bay ahayd oo ninka waa iska ilaalisay shardi bay ku xirtay tir islaam oo islaami buu yiri aabaheed iyo dadkeygii bay u sheegtay ninkii uu islaamay markuu hooygii diyaarsado dilay aroos baan gabadha la hooyo ayuu aabaheed la kaftamo wuxuu ku yiri waad islaamtee hal maalin masjidka kuumaan markii sidee ku dhacday wuxuu yiri adinku markuu dhaco jawaabta waa iska fududahay waan ku sheegay adinku markuu dhaco muslimiintu inna masjidka soo gashaa inna banaanka ku hadhaa buu yiri waliba inta banaanka ku hadhaysa badan buu yiri marka inta soo galaysa tirada yar aanu kuma biirine inta banaanka joogtay tirada badan la kamid ah igu tiriyo kuwa buu keen soo waaqع ma hadalkaas waaqع sooma marka culimadu dacwada ay wadaan runtii waa dacwadii dadkii khayrka jeclaa marxaba jazakumullah waxa inaga maqan marka dacwada leer dacwatu ghayr ar-raghibin dadka aan khayrka jeclayn ee culimada aan ku xidhnayn ee masaajida aan ku xidhnayn dacwadoodii baa ya ka gaabinaynaa Djibouti waxyaabaha ilaahay noogu nicmeeyay waxa kamid ah imika Afrika ininka naga sixiga annaka Soomaalida dadka Soomaali ku hadla maanta halkana ugu sokayso degantihiin halka wixii ka sagay waa qaaradda Afrika wax la galayo Djibouti waa jasiirada al-Arab aan qarka ku hayna annagu laakiin ilaahay fadliga waxa nii sheegay jamaacada Djibouti ka baxa waa Djibouti oo isticmaalsanayeen Faransiisku boqol iyo in ka badan oo dadkiisa lumiyay maanta dhalinyarada reer Djibouti hadda aan la hadlayo Niger jamaaca ku maqan Niger waa Niamey way ka soo warbixiyeen waxaan u tagnay bay ku leeyihiin tuulooyinka qaarkood dad boqolkiiba muslimiin oo salaad baan tukanayn oo maxaa u tukan weeyday marka la yiraahdo annaka sheekh awliyadeeda naga tukato lacagta siinaa jamaacada ka soo waramaysa hadda jamaaca ku maqan Senegal wala mid dad baa waxa aaminsan sheekh hebel baa iga tukada aniga xagu ku tukada xajka buu tagay inta lacagta ka bixino salaada xaramka lagu tukado waa 100 soo lama oran ha laba bilood ma ku itikaafi uno 5,000 qof isaga ka qaaday salaadoodii balka warmasha Mali Senegal Niger Togo Benin Ivory Coast Burkina Faso Guinea Conakry intaas wadana ni sheegayo jamaacada reer Djibouti way ku baxaan Senegal hadday joogan Niger hadday joogan Tanzania hadday joogan Burkina Faso jamaaca hadda u socota Uganda jamaaca u socota Burundi jamaaca u dirnay maalin dhaweeto tagtay dadkaasi waliba dhalinyarta sida u baxaysa ni sheegayo dhalinyar diin dhigatay hamoodin inay yihiin may waa dhalinyartii iskoolada jaamacadaha Faransiiska ka soo baxay daalku u talagal inuu lumiyo ayaa inta ilaahay dacwadan uu siiyay ayaa intii culimada ay ka maqleen intay qaadaan bay wadanka adduunka la dhex marayaan ummaddu maanta way gubanaysaa olol ba ka baxay maanta ummadda aan gaadhno oo insha Allah ragina akhyarta ganacsatada insha Allah dadaalka diinta inuu qaybtayna gaga aadan ka qaata insha Allah dhahada yaa u diyaar inuu ka qaato qaybtiisa Allah inagu afaa Allah inaga aqbalo bishan September aakhirkeedana ijtimaaci Hargeysa jira oo 23 ka dhici doona usbuuca dabana mu'tamarkii ayaa dhici doona halkan ka hor lagu qabto culimadu hadday u socdaan maantadan culimada u socotay maanta in la qadeeyo caaway baxayaan marka dadaalka diineed inaguna qaybteena gaga aadan ha ka qaadano waqtigeena ha bixino dacwada waqti ha loo soo gooyo war dukaankaaga iyo meheradaada hadaad waqti u sameeynin ma iswadaya de tijaaratu diin marka inay iswadasadee ku socota marka soo in dad waa inay diintu yeelato Sooma marka insha Allah dhaqaalaheena maalkeena waqtigeena aan wada bixino jamaacada dacwada tabliiq horta dhaqaale ma qaataan ogaada anu dhaqaale inaga dooni mayno ay waqtigiina u baahanahay inaan nasiisaan ninka taajirka inuu bixiyo maxaa u fudud ninka faqiirka inuu bixiyana maxaa u fudud isagana soo sama kala jeedi hadaba marka taajirka waxaan ilaana waqtiga bixi ila waqtiga kugu qaali adige faqiirkana waxa la yiraahdaa lacagta kugu qaaliya Soomaha lacagta jamaacada ku raaci lahayd adigu soo qaado reerkaagana masaarifta uga kaalay فمركا إن شاء الله دلالك هالزيادين ودعاءنا هم بدنه الله لنا أقبله هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد